saaxiibadayada aadka u qiimaha badan toddobaadkan idihiinu yaanay daalin waxaan jecelahay toddobaadkan inuu yahay toddobaad ka duwan toddobaadadii hore dabcan taasi waxay tahay waxaan idin sheegay oo idin ballan qaaday in aan idin geyn doono suuqii calafka suuqani suuqyada ka duwan waa adiga aqoonta daraasadda xirfadaada tababarkaaga caafimaadkaaga kolba intaad goyso suuqan waxaa lagu iibgeeyaa dadkii waa guurkii dhalinyarada wakhtigan bal ilaag oo ila arag muuqaalada cajiibka ah waxaan kale oo jecelahay inaad aad uga heli doontaan warbixintan ودني عصرية ونوي بعقشدي عويس كلبيي بل عاوة أن يدين عقو عالم كان عبارة النقضي إيو وحيابها يدين كل عصب ولمياد مقاشي سوق عميران وعين بعينه وحي لو يلي إسعاد شبيين إدكستا علف كيد عديرها كوبا يعضو وشيكا آدو حيسا بدن سوق وين oo laga daafuray magaalada ganacsiga ee dalka Shiinaha ee Shanghai maaha suuq caadiya waa suuqa guurka cidaad calmato cisho aad jeclaato inaad calaf la wadaagto laga yaabaa inaad ka cugato suuqan shadii timaadaba caalamkan aan joogno 10 horlaaca wallaahaya عروس لو عمامضي ولسه عن الملعب كوعني لا أصلي كان عن شغل عروضاً أدرك إنسان إنديه إنه يقبنيان عيار ما هالشيكادو والسوق دتك السوق عمري أو قف ولبه قف كستا بنان كسور دقي قيمهيسة أقونتيسة دبيعديسة دوخيسة يوحيابها لقيه ليو guurka uu qof la wadaagayo haddaba dadweynaha aad arkayso ee goobta soo dhaafiyay waa kuwa qoomiyada kala duwan oo ay kulmisay suuqan cajiibka badan ee laga cuganayo cidaad guur la wadaagi lahayd dadweynahan ayaa soo dhaweeyay daafurka suuqan cajiibka ee lagu cuganayo guurka cidaad la wadaagi lahayd laguna soo bandhigayo qiimaha dadka haddaba habsamiyo socodka suuqan guurka oo xusuus badan geliyay cid kastoo la kulantay oo goobtan ku sugnayd iyo cidda warbaahinta kala kulantay bal aanu eegno habsamiyo socodka suuqa iyo waxyaabaha ka dhaca muuqaalada kala gadisan ee suuqani leeyahay haddii aan idin bilaawno suuqani waa suuq cajiib ah oo la jaan qaaday nolosha casriga ah ee aadamuhu xilligan uu ku tallaabsaday mid ka mid ah dilaalinta waaweyn iyagu suuqani ka howlgala ayaa ka hadlaya baayaca iyo weliba iibinta xilliga la soo bandhigayo dadkan aad aragteen ee iyagu sameeyay suuqan la magac baxay suuqii calafka ama suuqii guurka qof waliba dooqiyo nasiibkii suuqu waa camiran yahay noocyadii ugu dambeeyay dadka da kastaba waynu ku soo bandhigaynaa baleeg waxa wiil goobta jooga baleeg waxa bilan qalanjo quruxdeed awees heer sarahba weeyaan ugu cidaad rabto ku ciilbax calafkii muddo kaa cadila halmo cidaad jeclaato baleeg da'yar iyo barbaarta waxa canab wadada camiray You know, can I count it off? 1, 2, 3, 4. For a daughter between the ages of 18 and 27 who wants to marry a Dairy Queen executive. yaa u baahan 27 jir caafimaad qaba oo shaqo taga oo injineera oo waliba u diyaara inuu qof kale noolaanayo ka raali geliyo wax walba oo xagga nolosha waa 27 jir yaqaana xirfadna u leeyahay loo kariyo cuntada waa 27 jir dabeecad wanaagsan Once you start saying you're making the big look at this numbers all over the place game changer if your daughter looks half as good as you I would love to meet her suuqani waa mid leh dabaqado kala sareeya oo ah kala qiimo badan waana suuq mid kasta uu leeyahay xiisihiisa korukiciisa dhinaca sixirka tan iyo markii daaha laga furay suuqan cajiibka badan ee madasha cugashada guurka dadka iyagu iska guursaday ayay warbixinteeda ku xustay inay ka badan yihiin kumanaan dad ah oo iyagu si fiican ugu riyaaqay helitaanka ay ka heleen lamaanihii nolosha la qaybsan lahaa oo aad ay ugu riyaaqeen oo aad ay ugu faraxsan yihiin arrinta la yaab kale ayaa ah inuu qofku dabeecadihiisa
iyo dhaqankiisa uu soo bandhigo wax kasta oo dabeecaddiisa dhaqankiisa uu leeyahay taasoo ay dhici karto inuu qofku qiimo sare uu ku helo hankiisa aqoontiisa iyo dabeecaddiisa qiimayn lagu sameeyey dadka iska calmaday suuqan guurka ayaa daaha ka fayday in lagu ogaaday in saddexdii dumarahiba ay ku soo hagaagi doonaan hal qudha taasoo welwel iyo walaac ku abuurtay kumanaan dumar ah oo iyagu aan marnaba oggolayn inay helaan lamaane ay cidilo wadaagto oo guursada Okay, it's a little strange coming from you, but I'll take it as a compliment. No, to be frank, this is not fashion, but this is tech. This is. bal u kaadiya waxaa isku leynaa suuqu waa badan yahay u kaadiya isku leynaa guurku wax sahlan maaha iska hubiya warqadahan waxa ku qoran wax allaale wixii aqoon ama xirfad aan lahaa waad iska soo eegi kartaan oo habliyo dhan maxay isku haysataan warqadahan eega bal aayara qunyara mid u eega haddaan anigu idinka warramo suuqani maaha suuq sahlan shalay ayaan anigu already ka helay guurkii oo shalay toole ayaa suuqan layga soo raadiyey ها wax walba waa samayn karaa waan aqaanaa bush ab waa samayn karaa Would you be down to maybe head back to the States? ukuurgalka suuqan xiisaha badan ayaa ku arkaysaa qaybaha kala duwan ee suuqan dhalinyaro aan weli aan guursan oo calafkoodii aan madashan ka helin iyo kuwo kale oo nolol heer sare ah galay isla markaana nolosha la helay dad taajiriina kuwa dabaqada kala sarreeya iyo dabaqada kale oo dhexaba leh muuqaalkani waa mid muujinaya baahida dad badan oo adduunka ku nooli u qabaan suuqan oo maalinba maalinta ka dambaysa booqashadiisa iyo dadka soo booqda ay aad u tiro badanayso I think that lady didn't want me videoing her to enter the tunnel of love. Green Lake. Mr. and Mrs. Tsang are keeping to their weekly routine. While they've not had any luck in finding a match for their daughter, the couple are not ready to give up on the marriage market just yet. 这个高工可以了吧？这个是做什么的？这是高工，可是厉害了，43岁本科，这可以的，我得拿6张6训，拿6张。 xaqiiqdii aad baad ugu riyaaqaysaa suuqan waayo qof kasta oo kugu habboonaa ee aad awil raadin jirtay wakhti badan si fudud ayaad u helaysaa waad aragtaa bal eeg waxa rag iyo dumar derbiyada ay warbixintoodu ku dhajisan tahay ee dhammaan isaga kala yimid daafaha dunida middaasi oo kuu sahlaysa waa dhab in aad si deggan oo fiican aad uga bogato cidda aad doonayso arrinkaasina waxa uu noqonayaa calafkii muddo kaa cadilnaa caawaba caruus noqday da'yar ku guursatay suuqa calmashada guurka ayaa waxaa ka mid ah wiil Soomaaliyeed oo isagu madasha arooskiisa ku dul qabsaday maraakiibta dalxiiska dushiisa oo uu ku metelay dareenka farxadiisa lamaanaha uu ka helay suuqan isagoo la micneeyay filimkii qiimaha badnaa ee xusuusta aadamaha ku reebay quluubta aadamaha ee Titanic hore ayaan u idhi daawade cidaad calmato cisho aad jeclaato inaad calaf la wadaagto laga yaabaa inaad suuqan calmashada guurka aad ka hesho adiga iyo dookha qiimaha aad geyso waa mid aan ku xidhiidhsan sida dadku u booqdaan wixii aad ku gadmayso amaba aad ku iibsamayso ee aad soo bandhigto waxaan jecelahay saaxiibayaal inaad warbixinta aad uga hesheen dabcan kuwo badan oo idinka mid way cajabisay haddii aad jeceshiin aad fikrad ka dhiibataan amaba aad ka harashaan sheekadan waxaad igula soo xidhiidhi kartaa emailka dabcan ama telefoonkan sidaan idin sheegay adiga iyo garaadka iyo intaad jirto kuwo badan oo idinka mid waxaan jecelahay inay rajaynayaan inay ka qayb qaataan suuqan calafka waayo waa suuq furan oo dabcan dadku isku baayici karaan kulba qiimaha uu jari karo